شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمضان ونكسن يسرنا العصب الله ينقبله. intii naga dhimatayna Allah u naxariisto, intay naga bogtana Allah caafiyo. dadka muslimiinta meel ay joogaanba waa fursad Ilaahay uu nasiiyay mar kale oo sanadkana oo walaalaheenii dhintay aanay helin ee maalin walba aynu arkayna tacsida hebel la tacsiyeynayo heblaayo la tacsiyeynayo aad bay u badatay 10 bay noogu filantay arrintaas. camalkaynu sahay qaadanaynana waa kan aynu fadhino, hadduu yahay cilmiga aynu isu sheegayno iyo hadduu yahay cibaadadan kale aynu gudanaynaba. kelmadeenu waqtigan duhurkii 15 mir bay ahaan doontaa insha Allah. isbuuciina way qaybsanaan doontaa. waqtiyada qaarkood waxaynu ka dhigi doonaa wiigan hore axkaamta bisha Ramadaan ilaa 70 mas'alo oo la xidhiidha soomka baynu wiigan hore ku soo bandhig insha Allah, si qofku cilmi ugu yeesho. oo cibaadadu haddaanay cilmi lahayn macno ma yeelato ama way ka xumaataa qofka. wiiga ku xiga insha Allah waxaynu qaadan doonaa muxaadaraad kala duwan iyo soomka iyo salaada iyo xajka iyo qaybaha arkaanu islaamka iyo iimaanka. saa daraadeed waxaynu ku dheeraan maynaa sahay cilmi ayuun baynu ka dhigi doonaa oo kolba waxaynu isdhaano fataawihina way dhex socon doonaan. oo wiiga barhkii qayb baa noqon doona inaynu wal wixii dadku ay tabanayaan aynu wax ka jawaabno. ugu horeyn waxa aynu ogsoonahay adduunka waxaynu u joognaa Ilaahay noo abuuray inaynu Ilaahay caabudno subxaanahu wa ta'ala. qofka Ilaahay caabudaya wuxuu garanayaa macnaha looga jeedo nolosha iyo ilayna imtixaanayo. qofka taa garan waayana sir alxayaa sirtii nolosha muu fahmin. ilaahay baa yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. cibaadooyinka haddaba ugu qiimaha badan ee ugu cajiibsan waxaa ka mid ah allah inaga aqbala cibaadadan imika aynu fadhino ee bisha Ramadaan iyo soomkeeda waa min acdam alcibaadaat. cabsida allana waa masdarka iyo meesha laga qaato. qofkuna tayo iyo qiimo wuxuu yeeshaa marka uu Ilaahay ka cabsanayo subxaanahu wa ta'ala. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل waxay tilmaamaysaa waa wax la inaga rajaynayo lagu sababeeyay soomkeena. soomka sidoo kale Ilaahay wuu ina jeclaysiiyay raqabana fiih, wuu inagu abaabulay oo wuu ina jeclaysiiyay. markaasaa wuxuu Ilaahay leeyahay wa an tasuumuu khayrun lakum. inaad soontaan iyo inaad iska daysaan wax la simi kara maahee inaad soontaan baa idin khayr badan buu Ilaahay leeyahay. cidda inala hadlaysaa waa Ilaahay ina abuuray subxaanahu wa ta'ala. isagaa danteena garanayo inoo dooraya. wakadalik arshadanaa ilaa shukrihi calaa haadihi alfariida. wuxuu sidoo kale inagu abaabulay inaynu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaqno nicmadaa uu ina waafajiyey. walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. ilaahay baa idin waafajiyey nicmadaas iyo hanuunka ah, waxaa la doonayaa inaad ku mahadnaqdaan. sidoo kale waxababahu ilayna wakhafafa cana lianlaa yahqulan cala annufuus. wuxuu inoo tilmaamay cibaadadan haynagu waajibiyo tijaabaha ahaato balse inay inoo fududahay oonay culays lahayn. markaasaa Ilaahay wuxuu uhi ayaaman macduudaat. haddaba maalmo tirsan waxba ha ka warwareegine ruuxdiina iyo jidhkiinaba dee caafimaad bay u tahay. waa maalmo tirsan baa Ilaahay uhi haa maanta way bilaabantay. waxaad arki doontaa ayaamo yar kadib adigoo shaqaynaya dhaadhacday oo 15kii hore la dhaafay. sidaa u soconaysaa buu cimrigeennuna u soconayaa. markaa waxaa Ilaahay uu ku fududaynayaa
markuu waa tiro yar waa tiro yaroon badnayn marka loo eego 12 bilood kale ee 11 lagu fasaxay bishana lagu yiri bal hada nafta yara carbi waxa sidoo kale rabbi subhanahu wa ta'ala uu inoo tilmaamay waxyaabaha inoo fududeynaya waxa kamid ah ama cibaadadan aan laga caban kareynin qofka ay ku adkaato waaba laga fududeeyay cibaadadu laha mashaqo caadiya cibaadadu waxay leedahay xoogaa mashaqo iska caadi oo la kari karo oo deynta adoonnimadaada lagu tijaabinayaa mashqac yaro layna yara gelinayo way bal inaad ogosho inaad ilaahay adoon u noqoto iyo kale cunadaada iyo cabidaada iyo wixii aad jeceshahay oo dhan inaad ilaahay daraaday u deynaysiyo inay naftu ku adoonsanayso marka haddii mashaqadaas ay qeyr caadi noqoto oo awoodeeni ay dhaafto waxa la wixii cibaado aba taysiir baa yimaada oo qawaacidka shariicadeena waxa kamid ah qaacido oranaysa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mashaqada qofka ku timaada fudayd bay keentaa soomkii baad kari weyday mashaqa kugu timi qofkii ku timi waa laga fududeeyay cibaadadii salaadida ayaa ku cuslaatay waa laga fududeeyo sidaad u kartabaalay isku wada dar cibaadooyinka oo dhan waa cibaadada dadka muslimiinta ilaahay uu ku waajibiyay nooca gaarka ay leedahay weeye haddaba cibaadada waxa soo dhami uu ku jiro ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta soo siyoodi inoogu abaabulay ma mudna ila fududaysto ilaahayna in lagu gacan sayro ma mudna sidaa daraaddeed si ay cibaadadaasi mug iyo miisaan u yeelato cibaado macaan oo ilaahay uu ka raaliyo qiyaamaha aynu ku faraxna ay u yeelato aqooni waa muhiim camalku cilmi buu baahan waynaga aragno camal kasta adduunyada la qabanayo qofka loo dirayo waxa la yahay muxuu cilmi u leeyahay laba arrimood baa loo eegaa muxuu khibrad u leeyahay iyo muxuu cilmi u leeyahay cilmigiisu xataa kii nadariga hadduu yahay ee tatbiiqiga aanu weli gaarin waxa la yiraahdaa qofkan aqoontii uu leeyahay laakiin ma la soo qabsaday waxa la doonayaa inuu idqaan yimaado oo shaqadii camalkii la hagaajiyo camalkii dunyawiga camalkii diiniga ahaana maxaad u malaysay ilaahay loogu dhawaanay subxaanahu wa ta'ala marka masalada koobaad aynu sheegi lahayn waxa weeye soom maxaa la yiraahdaa soomku waxa weeyaan al-imsaaku 'an al-muftiraat fi nahar ramadan bi niyyati siyam sharci ahaan marka la eego ta luqada kama hadlayno oo luqadu waxa weeye qofkii oo iska daaya cunada amaba iska daaya wax u sameyn lahaa maryama bint umraan markii lagu buuqay ee dadka qaarkood ay qadfeen waxay leedahay inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan anugu maanta soom baan nadar ku galay soomkaasina waa hadalkan ka aamusaya marka hadalkii oo laga aamusaa soom noqotay laakiin xagga sharciga waxa weeye inuu qofku cunadii iyo cabidii wixii jabinaya oo dhan waa caam wixii jabinaya soomka inuu ka joogsado iska daayo taa waxa isagoo niyoonaya soomkaasi faral iyo sunnaka uu yahay taa waxa laga saaraya marka soomam kale oo ummadaha kale ay soomaan casrigan iyo cusurtii horeba waxaynu ognahay des soom dadka qaar oo soomaan ujeedooyin kala duwan ay u soomaan qaar baa u sooma liyaaqatul badan in jirka lagu khafiifiyo oo ilaan jirku markuu gaajoodo shuxuumtii iyo xaydhii buu dib u cunaa oo qaybtii qofka uu istoor garaysnayd jirkiisa iyo baruurtii buu dib u cunaya qofkii markaa wuxuu helayaa inuu fududaado xigmadaha soomkay ka mid dad baa jirka aan ku fududayn oo sooma casrigan ay joogno qaar kala ka sooma cunada qayb kamida sida hilibka kale oo waynu garanaynaa jaarkeenaba kamida almuhim kuwa looma jeedo waxa soo dhan si uu uga baxo soomkii waa soomka wax kasta oo jabinayo inuu sheegi doono la iska daynayo iyadoo ilaahay daraadii loo niyaro subhanahu wa ta'ala taasi waa masalada koobaad iyo in qayaxaad iyo tilmaan gaar lagu sameeyo soomkeena masalada labaad waxa weeye xukm hadhihi al-fariida soomkan isaga xukumkiisa saynu marar badan soo tilmaanay soomku waa laba qaybood mid sunnah iyo mid farala ka faralka waa saddex qaybood soomka bisha ramadaan iyo soomka nadarka oo qofkii midal lillahi calayya ana suma bi 10 ayaam wuxuu leeyahay wuxuu ugu leeyahay 10 maalmood soomo faral buu ku yahay iyo soomul kafaaraat qofku hadduu wax dilo hadduu xaaskiisa bisha ramadaan u tago waa soomkii kafaara gudka labada bilood ee raacsan ahaa marka soomkaas waa farad inta wixii ka soo harayna waa soom sunna kan imika waxa weeye muslimiinta oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin iyagoo daliilada soo qaadanaya quraanka iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in cibaadadani farad tahay ayadda aynu soo akhrinay baa sidaa sheegaysa
إلهي بقى وحول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب في علم الأصول مركا لا يقو وأريد الله استعماله شيء قال الشيء يا إنه واجب فرض وإلا مت أوجب عليكم مركا وحل إذن كواجبية وركا صهر يبقى متشربا نبينا عليه الصلاة والسلام وحط المام بشهر رمضان صوم كذا وكم ذي وحيابها تيرانك إسلام كأنه كتاجيه بني الإسلام على 5 إسلام كيو حلقوا لسي شن وحكم ذا صوم رمضان أنت كلوا قرنينا بشهر رمضان يصوم كذا استدر هديت هدو قفكو سوى كرية بشهر رمضان صوم كذا اسكدا قد ارتكب كبيرة من الكبائر وحكون عاي دنبي وين هو دنبي هذا خطرت بدن كمده لأركان الإسلام كيبو 100 شرعي تيرارك الإسلام كيبو كتاجنا عقوبنا وليه عقوبة وين أيوه يارانا يا waxyaabaha muujinaya cuqubadaasi aad uga digaya soomaalaanta waxa kamid ah xadiis nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo saxiix tarqiib wa tarhiib ku sugan rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu habeen baa la yidheelmiyo malaa'igtu ay kaxeeyeen waxay mariyeen jawla wareeg dheer baa la soo mariyay jannada naarta dadka jannaysan dadka cadaaban kuwii la tusay waxa kamid ahaa waxaan maqlay uu naarta oo qayla ka baxayso waxaas muxuu ahaa waxa la yiraahdaa aswaatu ahli naar dadka naarta ku jira qayladoodii weey waxa kamid ah la igu yiri qoliyo waxaan arkay buu waxaan arkay qoliyo boqonta inta laga xiray la soo daldalay oo afkana la dildilaaciyay dhiigna ka daayo kuwaas maxay ahaayeen waa kuwii bisha ramadaan oo gaarin waqtigii la afurayay iska cunayay baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka sinaystay iyo kuwa ribada cunay iyo qolo walba gaar baa wax loogu sheegay laakiin kuwa soomka soomi waayay bisha ramadaan sidaas iyagana loogu ciqaabaya cadaab qabrigaana ay u marayaan waxa xaafid الذهبي رحمه الله وليه مركو مسألة كهذا عند المسلمين مقرر على أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر مسلمين تأكتوا لو حسوا بالله قفك خمر عبا يي كاس سنة يين وكدريه قفك صوبي واي تصالح النوضي منافق نبنا واليني وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال لماذا قاركودنا وحابين نشرين قفكاسي ونوع منافق نبا كجرته sidoo kale haduu xaraanta xalaashado oo yiraahdo dadkani way iska daalayaan way iska gaajoonayaan bishani wax la cunaa waa xalaal aayaadkan uu beeniyo axaadiistan uu beeniyo diinta islaamka uu ka baxay saadaradeedu waa ku ridoobaya diintu kaga durkaya sababku walaalayaal wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aad u fadli badan oo waqtiyada qaar kood aynu ku qaadan doono duruusta kale oo intuba ina jeclaysiinaya cibaadadan inaynu u heelanaano oo aynaan fudaysanin waxa kamida xadiidka sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis al-qudsiga oo ilaahay nooga wariyo tilmaamaya rabbi cibaadooyinka kale oo dhan waxa la adoonka soomka ana leh wa ana ajzi bihi maxay sheegaysaa cibaadooyinka dhan ilaahay baa wada leh laakiin khaas yeelida ilaahay si gaar ah u khaas yeelay waxay sheegaysaa in ajrigiisu uu dheeraad leeyahay oo cibaadooyinka kale ay dheeraad ka leedahay waxa kamida xadiidkii isaguna tilmaamaya anna sawma la cidla lahu an-nasa'i warinaya saxiixa ninkii nabiga weydiiyay maxaad ugu talin lahay inaan ku duglayaan ku dhaga cibaadooyinka alayka bisawmi fa innahu la mithla laha aw la cidla laha sawmuna gow wax la mid ah cibaada ah ma hayo ilaahay noo sakhiriyo oo inagan ku dhex jirna waxa kamida fadaa'ilkiisa waa soo gaagaabinaynaa xadiidkii tilmaamaya anna da'wata saa'im la turad qofka sooman ducadiisa inaan la aqbalayn waa fursad mudan aynu ka faa'iideysano sidaad wardiga u badinaysay quraan akhriska xoogaa markaad joogtaba wixii kuugu daran ka ducayso waxa kamid ah cibaadooyin fadliga soomka xadiidkii saxiixa ay sheegayay inuu qofku laba farxadood leeyahay adduunyadana farxaya aakhirana farxayo noloshuna waxay macaan ku yeelataa inuu qofku farxada helo oo sacaadadu aanay ka durkin aanay ka maqnaanin waxa kamida inuu shafaaco qaadayo maalinta shafaacada aad loogu baahan yahay soomku oo soomka iyo quraanku
way shafaaco qaadayaan buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intaasuu 15 daqiiqo ku dhammaaday waynu sii wadi doonaa insha allahu halkaasay maanta inoogu joogtaa soomkiiyo salaada iyo sadaqada iyo dikriga iyo cibaadada iyo qur-aankaba allah inaga aqbalo waxaynu tabayniyo cudurkana allah inaga dulqaado sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam subxaana rabbik